xildhibaanadii laga soo doortay maamul goboleedka Jubbaland oo ku matalayay dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo kadib markii ay isku dhaceen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba sidoo kale ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo dhinaca iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo markaas sheegay hab maamulka ay ku maamulayaan dawladda dhexe Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse Cabdi Barre inuusan ku qanacsanayn isla markaasina sheegay in xiriirka uu jaray hase yeeshee dhammaan maamul goboleedyada Soomaaliya iyo dawladda federaalka ayaa waxa soo kala dhaxgalay madmadow siyaasadeed Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa go'aano culus uu hor keenay maamul goboleedyada isla markaasina ay ka mid tahay in doorasho qof iyo cod Soomaaliya ay u guurto iyo dastuurka la bedelay iyo waxyaabo badan ay ka mid tahay markabka la sheegay Soomaaliya inuu joogo oo markaasi soo saarayo shidaalka iyo saliidda Soomaaliya arrimahaas oo iskaashaday ayaa waxa ka biyadiiday maamul goboleedyada oo koow ka yahay Axmed Maxamed Islaam iyo waliba sidoo kale Saciid Dani oo Puntland sheegay in aysan qayb ka ahayn dhammaan bashirarkii ka dhacay inta uu joogay Xasan Sheekh Maxamuud filla Soomaaliya hase yeeshee haatan ayaa magaalada Kismaayo waxa soo gaaray xildhibaanadii laga soo doortay Jubbaland oo maalmahanba garoonka magaalada Muqdisho Aadan Cadde International Airport loo diiday inay ka soo baxaan kadib markii siyaasad cakiran ay ka dhex istaagtay maamul goboleedka Jubbaland iyo dawladda federaalka si kastaba ha ahaatee wararka kale oo ka helayno magaalada Kismaayo ayaa waxay sheegayaan in ciidamadii daraawiishta ilaa ay haatan aysan helin mushaar oo magaalada Kismaayo lafteeda ayaa waxay la ciiraysaa siyaasad cusub ila xog ogaal ah sida aan ka soo xiganay ayaa waxay sheegeen ciidamada daraawiishta lacagihii gunnada ay u lahaayeen ayaa waxay ku eedeynayaan in Axmed Maxamed Islaam uu wiiciyay safarka xildhibaanada ka soo baxay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo markaasi la sheegay in dhaqaale fara badan lagu bixinayo si magaalada Kismaayo ay u imaadaan oo ay uga hor imaadaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo siyaasadda markaasi uu ku hogaaminayo dawladda dhexe ee Soomaaliya halka sidoo kale magaalada Kismaayo ay la ciirayso musharaxiin u taagan xilka madaxweynaha markaasina doonayo in Jubbaland isbedel siyaasadeed ay ka imaado meesha laga tuuro Axmed Maxamed Islaam oo muddo dheer soo hayay halkani isla markaasina ka soo talinayay deegaanka Jubbaland muddo 13 sano hase yeeshee haatan ayaa daraawiishta ciidanka Jubbaland ay ku sugan guud ahaanba deegaanka Jubbaland waxa ay ka cabanayaan in mushaarkoodii gunnada ay u lahaayeen aysan helin isla markaasina waxaan wararkaasi ka soo xaganay ila xog ogaal oo ku sugan magaalada Kismaayo halkaasina ay ka cabanayaan ciidamada mushaaraadkoodii aysan helin Axmed Maxamed Islaam ayaa dadka qaar waxa ay ku eedeynayaan inuu isticmaalo siyaasado adag isla markaasina magaalada Kismaayo aysan ka dhicin go'aan asaga uusan ogeyn wax uu soo wadan halka dadka qaarna ay leeyihiin Axmed asaga ayaa u fiican Jubbaland oo waxa uu ka dhigay nabadgelyo deegaanka Jubbaland oo markaasi waxa ay imaaday kala dambeyn iyo nidaam si kastaba ha ahaatee haatan iyo magaalada Kismaayo waxa ku sugan musharaxiin doonayo in Axmed Maxamed Islaam xilka ay ka turaan oo kamid yahay musharax madaxweyne Cabdi Cali Raage oo taagan xilka madaxweynaha Jubbaland oo markaasi doonayo in Axmed Maxamed Islaam oo karkarka weedaariyo Axmed Maxamed Islaam ayaa sidoo kale waxa uu ku adkeysanayaa inuu sii xukumo Jubbaland markaasina loogu daro 5 sano oo doorasho uu galo oo markaasi uu sii xukumo Jubbaland waxa uu noqonayaa ninka ugu xukunka dheer oo markaasi soo maro maamul goboleedyada markii laga reebo dawladda dhexe oo ka soo talinaya Allah u naxariistay Jaalle Maxamed Siyaad Barre oo markaasi ka soo talinaya 22 sano ayaa wuxuu noqonayaa ninka kaliya ee ku xugo oo markaasi ka taliyo maamul goboleed ee xukunkiisa aad u dheer yahay oo maamul goboleedyada kale ka xukun dheer si kastaba ha ahaatee Jubbaland waxay la circiraysaa siyaasad cusub oo markaasi la doonayo Axmed Maxamed Islaam in karkarka lagu weedaariyo loogana tuuro xukunka haatan uu ku fadhiyo oo ah madaxweynaha Jubbaland oo markaasi dadka qaar ay ku eedeynayaan Axmed inuu wax sii maamuli karin